ma tahay waalid mise macallin ilmo waxbara? Ma laga yaabaa inaad aragtay canugaadii ama canugii aad waxbaraysay oo mar walba maqana jooga ah? Laga yaabo inuu fasalka markuu ku jiro uuna niyadiisa aad dareemayso inaysan joogin, ama u malaynayso inuu riyoon hayaba. Canugaasi oo laga yaabo in waxbarashadiisa ay aad u liidato, fasalkiisa uu hooseeyo, natiijada u keenaysana ayna fiicnayn, ilmaha kale iyo suu maaragtay u ciyaarahay ama ula shaqaynhayna badanaa waxyaala fara badan uusan ku fiicnayn. Taasi waxay u badan tahay inay tahay nooc ka mid a noocyada qalalka oo absenteeism la dhaho. Qalalkan absenteeism la dhaho loo yaqaano haddii la fasiro maqani jooge, qofkii inuu ilbiriqsiyo yar uu khadka ka baxo, asagoo markaa maskaxdiisa xiskiisana uusan tegin, sidiisa kalena jooga oo laga yaaba maalintii 10 jeer 100 jeer inuu lahaado uu ilbiriqsiyo yar uu khadka ka baxo. Indhihiisa waxaa laga yaabaa qofka inuu indhaha meel ku taago ilbiriqsiyo, asagoo shaqo ku jira hal mar uu iska yara istaago, ama wixii uu qaban waayo, ama fasalkii uu qofkii wax la weydiinayay su-aashii khadka ka baxo, uu maqan yahay, waxaasna uu gafo. Taasi waxaa la yidhahdaa saan idiin sheegayba absenteeism. Waa nooc qalalka ka mid a carruurta ku badan, khaasatan gabdhuhu sii badan yahay. Badanaa dad badan oo waalidiinta iyo macallimiinta iyo tababarayaasha ka mid a inaysan dareemin baa laga yaabaa. Canugaasina wuxuu u baahan yahay in dhakhtar loo geeyo, xanuunkiisa la ogaado, dawadiisa la siiyo. Waxaa laga yaabaa inuu macallinkii ama waalidkii canugii uu cadaadis saaro oo uu leeyahay waxbarashadii baad ka liidataa, mar walba la garaacayo, cunugii culays aad loo saarayo. Arrintana arrin saas u baahan ma ahan, waa arrin dawo u baahan. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.